السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Mawlid Kuban. waxaan rabaa inaan idiin sharaxo sidii aad uga dhigi lahayd disable ama unable window recovery environment in Windows 2010. marka hore waxaan tegaynaa cmd aan tegaynaa right click ayaan leenahay. right click markaan dhahno yes ayaan leenahay. بعد اسك soo gaabinayna waxaan leenahay reg agents /info. marka disable uu naga yahay oo saa u jeediin. hadda haddii aan tagno recovery-ga nama tusaayo waxyaabo badan iyo meesha aan ka sameyn lahay recovery. marka aan tagno recovery-ga setting aan tegaynaa security update and security aan tegaynaa. waxaan leenahay recovery aan leenahay, restart aan leenahay. marka optiona badan nama siinaa maadaama uu disable yahay, recovery nama sameyn karayno. marka recovery-gaasi disable-kaas inaan enable inaan ka dhignaa laga waana option-ka ugu dambeeya, meesha ugu dambeysa ayaan taaganahay. meeshaan ma sii dhaafi karno oo disable uu naga yahay. saddexdaa option iyo option-kan kale ma siinaa. troubleshooting markaan tagno waa kaasa, wax kale lama sii siinaa. waan noqonaynaa marka waa ka baxaynaa, research isku soo sameynaa. marka waxyar research marka isku soo sameeyo login username uu leeyahay aan gelaa, and then waxaan sameynaynaa enable aan ka dhigaynaa. marka waa kanaa waxaan ka dhigaa password aan ku jiraan geliya. marka cmd daan tegaynaa again. waxaan leenahay run as administrator, yes aan leenahay. marka waa iska soo gaabinaynaa maraayadaan reg agents /info. haddana marka la intusayn oo disable yahay, waa kana saa ujeedin disable yahay. marka waxaan leenahay enable aan ka dhiganaa. marka enable aan ka dhignay, hadda success oo leeyahay waxyar kadib success oo yaro saa ujeed. marka waxaan tegaynaa marka meesha aan tegaynaa setting aan tegaynaa. waxaan tegaynaa update and security, recovery aan leenahay, restart aan leenahay. marka optionadii badan oo naga qarsanay maadaama hadda enable aan ka dhignay oo disable-ka aan ka qaadnay, waa awoodi karaynaa inaan troubleshooting ku sameyno. advanced setting marka hore kan bes uu ahay, hadda kan marka optionada waa kuwana. marka wixii oo noo ogolaayay inaan waxaan rabno aan ka sameyno computerka si aan u ila baxsano. marka cashirkayga intaasuu ku saabsan yahay. intaan cashir lamida aan ku wada kulmayno, waxaa waaye waa walaalkiin Mawlid Kuban oo leh isku soo noqod dambe oo xiiso leh. share, like, comment intana saara, la wadaaga asxaabtiina dadka future kale ama mustaqbalka kale inay u shaqeeyaan IT. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.